soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadana dalkan ku daawan doontaan haddii baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya suldaanka guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi iyo ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa la filayaa in dhawaan ay ku kulmaan dalka Djibouti haddaba maxay tahay sababta rasmiga ah halkaas ku wada hadlayaan xilli dagaal beeleedyo u dhaxeeyay labada nacba maxaa ka soconaya dalka Djibouti faahfaahin dheer oo aan rabo aan saaxiib yaal inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh saaxiib yaal aad galabnimadana dalkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maamulka Somaliland ayaa ka carootay tagitaankii ugaaska guud ee beesha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi inuu tagay dalka Djibouti haddaba Somaliland maxay ka tiri oo ay rabaan in maamulka Goban State ay hirgeliyaan dowladda Djibouti sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Djibouti ayaa dhiraandhirinaysa sameynta maamulka Goban State iyadoo isku soo dhaweynaysa beelaha halkaasi u wada dega iyagoona markaa ay sheegtay in maamulka Goban State ay ka wada shaqeyn doonaan xilli markaasi warar hoos soo ifbaxay ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay qayb weyn ay ka qaadanayso dhisidda maamulka Goban State qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeyso fadlan kanalka rukumo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay sina share garay saaxiibada la wadaag mahasani daawade haddii aad markaa kugu horeyso waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-kan soo subscribe gareysid si aan u gaarno 10,000 oo subscribe sidoo kale muuqaalkan la garay like mailer ay gaarsiisaa muuqaalka mahasanidiin daawade hagaag aynu ku bilaawno magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa gaaray ugaaska guud ama suldaanka guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi si uu markaasi ugula soo niqaasho ama wada hadal uu la galo dowladda Djibouti oo garwadeen ay ka tahay isu soo dhaweynta maamulada waa markaasi aan raade beelaha Samaroon iyo Gudbursa ay waliba sidoo kale beesha Ciise dhowrkii bilood ee u dambeeyay waxay ahaayeen laba beelood oo aan la istusi karin iyagoona ay dagaal adag oo kala dhaxeeyay balse ugaaska guud waa suldaanka guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi ayaa gaaray dalka Djibouti si uu arrimo markaasi fara badan ugula soo hadlo madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo waliba sidoo kale xaaladda guud ee marka ay ku sugan yihiin dhawaan ayay ahayd markii Somaliland oo aan markaasi waxba aysan u reeban beesha Samaroon ayaana hadda waxa ay Samaroonku ay raadinayaan xaltii ka duwan oo ah in beesha Ciise ay wada heshiiyaan sidoo kale dhul xeebeedka dhanka Djibouti soo xigana ay wada degaan oo laga wada shaqeeyo dhisidda maamulka Goban State dhawaan ayay ahayd markii magaalada Xariirad dagaal adag uu ku dhaxmaray ciidamada Samaroon iyo waliba sidoo kale kuwa maamulka Somaliland oo dhowrkii cishe u dambeeyay halkaasi ku wada dagaalamayay Somaliland ayaa horay markaa shaaca uga qaaday inaysan uga heebeysan doonin beesha Samaroon in ay maamul ay u sameysato magaalada Xariirad balse laakiin beesha Samaroonku ayaa ku adkeysanaya in magaaladaasi ay maamul u gooniya ay leedahay balse ciidamada Somaliland ayaa dhawaan ahayd markii weerar kala duwan ay ku qaadeen iyadoona halkaasi laga saaray ciidamadii iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiintii halkaasi ku sugneed magaalada Xariirad inkastoo hadda dhinacyada kala duwan ee Samaroonka iyo Somaliland ay ku sugan yihiin haddana waxaa muuqata dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay wadaan Somaliland taasoo ay ku doonayaan in gebi ahaanba ay ka taqalusaan dhawaan ayay ahayd markii beesha Ciise ay sheegtay inay dhisanayso maamulka Goban State ay gebi ahaanba laga biyo diiday halka Samaroonku ay iyaguna isku dayayaan ama horeyba looga diiday laftigoodaba aan raade gobolka maamulka Awdal State sidoo kale hadda waxa ay doonayaan in si tartiib ah ay u dhistaan maamul balse magaaladii ay rabeen inay ka bilaawdaan ee Xariirad ayaa gebi ahaanba dagaal ka qarxay dhowrkii cisho u dambeeyayna waxay ahayd goob halkaasi furin dagaal oo ay ku wada dagaalamaan Samaroonku iyo Gudbursa oo isku dhinaca iyo waliba sidoo kale kuwa maamulka Somaliland Cabdirashiid Doodi oo horay warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in Somaliland ay markaasi wax laga xumaado ay ku sameysay ciidamadii ku sugnaa Samaroon ee magaalada Xariirad balse laakiin tani ay noqon doonto in jawaab degdeg ay ka bixiyaan jawaabtii degdegeed ayaa dadku badankood ay leeyihiin tagitaanka Djibouti ugaaska guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi ay markaasi noqonayso balse xaaladan ayaa hadda noqon karta mid intay heshiiyaan Samaroonku iyo Ciise
ay naqdaan hal mid ayna dhistaan maamulka Guban State oo ay ciisuhu ay garwadeen ay markaasi ka tahay dowladda Djibouti ayaana wada sidii beelahan walaalaha ay u kala dhaxdhaxaadin lahayd arrinkoodana xal waara loogu gaari lahaa maadaama dad isku dhow darisna ay yihiin deegaan ahaan ay wadaagaan haddana beesha ciisuhu ayaa hore u sheegtay in ay iyagu diyaar u yihiin sharci iyo qeyr waxa ay la yimaadaan cid kasta oo ka aragti duwan ama cid kasta oo isku daydo inay si xoog ku muquuniso balse Samaroon ayaa hadda laga fadhiyaa in xaaladan wax badan ay ka bedelaan dhanka kalena maamulka Somaliland ayaa si weyn uga carooday falkii uu ku kacay suldaanka guud ee beesha Samaroon Cabdirashiid Doodi tagitaanka magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Somaliland ayaa wax markaasi laga xumaado ku tilmaameen arrinkan ay ku dhaqaaqeen beesha waa maartay ugaaska waa suldaanka guud ee beesha Samaroon isagoona uu gaaray magaalada Djibouti si uu halkaasi wadahadalo toos ah ula galo madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo waliba sidoo kale saraakiisha uga sarsareysay ee dhinaca Djibouti iyagoona kala arinsanayaan xaaladda guud Somaliland ayaana ka carootay falkan ay ku dhaqaaqeen iyadoona ay markaasi ku tilmaantay mid aanan maartay la aqbali karin waxa ay wadaan Samaroonku haddii xariirad la isku farasaarayay markan sheekadu way ka sii weynaan doontaa haddii ay heshiyaan Samaroonka iyo waliba sidoo kale beesha ciisaha waxaa dhici karto xaalad aan horey loo arkin maxaa yeelay awoodooda isbiirsatay waxay nuuxjin karaan in maamulada qaar ay si awood ay ku qabsadaan maadaama Somaliland oo dhinac kala duwan weerar iyo waliba sidoo kale dagaal uga furan yahay haddana waxaa la aaminsan yahay in xaaladan ay noqon karto mid isbedesha haddii Samaroonku ay ku adkeystaan in ay qayb ka naqanayaan in ama ay leeshiyaan beesha ciisuhu balse laakiin xaaladan ayaa u muuqata mid dabka ku sii shidi karto haddii Samaroonka iyo ciisuhu ay heshiyaan Somaliland dhibaato kale ayay wajihi doontaa xilli ay la ildarneed in ay raadiso 30 sano ictiraaf ay u raadiso maamulka Somaliland inkastoo maamulka Yahuudda Israel ay sheegeen inay aqoonsadeen haddana waxa uu ahaa call barangi ama telephone ayaa loogu sheegay Somaliland in ay dal ka madax bannaan Soomaaliya yihiin balse Soomaaliya ayaa aad arintaasi laftigeeda uga carootay balse Somaliland waxay isku haystaan hadda dal ka madax bannaan Soomaaliya inuu markaasi uu yahay dhanka kalena saaxiib yaal haddii aan eegana dowladda Djibouti ayaana markaasi ka shaqeynaysa sidii loo dhisi lahaa maamulka Guban State dowladda darisku ayna nahay ee walaalaheena ee Djibouti ayaa wada dhisidda maamulka Guban State maadaama beelaha ciise iyo Samaroonku in muddo ay wada dagaalamayeen dagaalkoodana xal loo waayay xalka ugu wanaagsan ayaana noqon kara in hal maamul wada ogol yahay ay wada dhistaan oo Guban State si ay iyaguna maartay maamul la aqoonsan yahay ay u noqdaan haddii maamulkaasi ay heshiyaan Samaroonku iyo ciisuhu loo dhiso maamulka Guban State waxaa dhici karta in durbaba Djibouti iyo waliba sidoo kale dowladda Soomaaliyeed ay aqoonsan leed sidoo kale arintan Djibouti ay wado waxay garab ay ka helaysaa dowladda Soomaaliyeed oo wado sidii dadkan iyo deegaanada markaasi wadaaga lisu soo dhaweyn lahaa ayna u noqon lahaayeen dad walaalo ah maxaa yeelay dagaal haddii wax uu tari lahaa intaas bilood ayay wada dagaalamayeen dhibaatooyin ay isku geysteen welina wax ka soo naasacadaada male inkastoo ciisuhu uu dhul ballaaran uu isaga gacanta ku hayo haddana Samaroonku waxa ay noqdeen dharigii labada dhinac ka gubtay mar Somaliland ay xigsanayeen marna ciisuhu ay la dagaalayeen balse laakiin markan haddii ay midoobaan labada dhinac ciisaha iyo Samaroonku quwad weyn ayay noqon doonaan oo laga baqi doono maxaa yeelay sida ay hadda wax u socdaan marka loo fiiriyo waxa ay maartay u muuqataa saasaanta in dowladda Djibouti ay wax badan ay fahansan tahay wax badan ay ka dhiraanin karto maadaama ay rabto dhulka maartay xeebaha leh ee dhinaca xuduudda Djibouti soo xiga in maamulka Guban State dalkaasi laga dhiso waliba maamul fadhiyo ayuu noqon karaa waa sida ay aaminsan yihiin Djibouti maadaama ay hadda xaaladdu ay u muuqato mid ay si cuslaanayso dhowrkii saacadood ama dhowrkii bilood ee u dambeeyay Djibouti waxa ay doonaysaa hadiiba laga maarmi waaye ama maartay beelaha la heshiisin waaye in maamul ay wada ogol yihiin loo dhiso hortooda ay u socdaan Somaliland waxay ka soo horjeedaa markii Samaroonku ay dalbadeen in ay Awdal State ay dhistaan waa laga diiday sidoo kale ciisaan waxa uu rabay Guban State inay dhisto waa laga diiday
sidoo kale xariirada marka la isku dayeen waxay sameeyeen oo aan raadi magaalada xariirad ayay samaroonku isku dayeen in ay maamul iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin gudoomiye xogeen deegaan ama magaalo intii u baahnaan leed ayay u soo magacaabeen oo ay u doorteen balse laakiin maxaa dhacay Somaliland ayaa arintii ka carotay weerar kala duwan ay ku sameysay weeraradaasina waxa ay dhalisay natiijo ah in halkaasi lagu wada dagaalamo ugu dambeyn halkaasi lagu kala adkaado daawaday haddii dalkan ay la soo gaartay waxa taa qof qalbi wanaagsan waa xasan xasle kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la garay siin share garey saaxiibada la wadaago ku meesantiin daawashada muuqaalka meesridin